السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا سيدا كدمي waxaynu maanta cashirkeena ku soo qaadan doonaa waa maxay digital marketing marka hordhac bayn marka maanta ka samayn doonaa insha Allah waxaynu videogan maanta marka u soo qaadanay maadaama ardaydu intooda u badan ay soo codsatay su'aashaynu ka soo jawaabnay ahayd ardaydu maxaa topigeedeed xiisaynaysan inay arday aad u badan ay xiisaynayaan digital marketing halka berigii hore channelku u badnaa designka iyo developingka ama codingka hadda waxaynu uga soo biri doonaa insha Allah waxa loo yaqaan digital marketingka inaynu cashar ka sameeyno balse waxay ku xiran tahay ardaydu sida uga falceliyaan videoska introductionka marka fadlan aad xiisaynayso like gare asxaabtaadana la wadaag si waxa weeyaa marka uu dad badan u gaaro waxaan isweydiinaa waa maxay digital marketingku haddii si fudud uga jawaabno waxa weeyaan digital marketingku waxa uu la mid yahay horta traditional marketingki waxay ka siman yihiin waxa weeyaan labadu waxa weeyaan waa marketing labaduba qorshahooda iyo targetkooda waxa weeyaan in productka ama serviceka qofka iibinaya oo macaamiishiisa waxa weeyaan uu gaarsiiyo productgiisa isla markaa waxa weeyaan inuu productgiisa macaamiishu markaa ay iibsataan marka traditional marketing waxa loo yaqaanaa waa marketingkii berigii hore la sameyn jiray weli wuu jiraa oo mutabarku in laakiin waxa digital marketingka ayaad moodaa inuu suuqa ka soo saaray maadaama dadka ay soo baranayaan traditional marketingka inta badan waxaa ka mid ah tusaalooyinka meelaha loo isticmaalo marka traditional marketing iyo digital marketing waxay ku kala duwan yihiin waa channelka means waxa weeyaan meesha xayeysiiska ama waxa weeyaan advertisementiga ama waxa weeyaan marketingku channelka uu maraya ayuun bay ku kala duwan yihiin oo traditional marketing wuxuu maraa TV-yadii waxa ka mid ah waxa weeyaan ayaa laga sii daayay xayeysiisyadiisa magazines-kii joornaaladii raadiyooyadii billboardskii iyo wixii kale ee lamid ah loo yaqaan waa traditional marketing waana runtii inta badan traditional marketing waa wax aad u sii yaraanaya digital marketingkuna waxa weeyaan waa weyga macaamiishaada adeegaaga ama alaabtaada aad ku gaarsiinayso adigoo u maraya electronic deviceska sida mobilada computerada iyo dhammaan wax kastoo electronicsa xitaa gawaadhida waxa weeyaan tabletska ku xiran marka digital marketing iyo traditional marketing waxa jira waxay wadaagaan balse digital marketingku waxa weeyaan muddooyinkan aadka u dambeeyay waxa weeyaan waa uu ka sii horumarsanaanaya waayo waxa 2022 daraasadii ugu dambeysay soo baxay waxa weeyaan 5.3 billion qof ayaa dunida isticmaala internet macnaheedu waxa weeyaan digital marketingku qofku wuxuu helayaa waxa weeyaan opportunities uu si fudud ugu gaari karo macaamiishiisa digital marketing haddii soo faanay waxa jira hadaba noocyo kala duwan oo digital marketingska waxa weeyaan loo qaybiyaa yacni channels kala duwan oo uu maro digital marketingku number 1 waxaan tusaale uga soo qaadan karnaa waxa jira wax loo yaqaano email marketing waa maxay email marketing waxa weeyaan inta badan waxaad aragtay haddaad inboxkaaga ama emailkaaga haddaad gasho emailo professional oo qurux badan oo waxa weeyaan isla markaa taytalada iyo ciwaanada ay wataan waxa weeyaan ay markaba ku soo jiidanayaan marka ama discount ha noqdaan ama waxa weeyaan shay aad iibsanayso ha noqdaan whatever waxay doonaan ha noqdaan email marketingku inta badan Soomaalidu aad uma isticmaasho laakiin waa way macaamiisha aad emailskooda aad ka hayso aad u diri karayso waxa weeyaan adeegaagii ama alaabtaadii waxa weeyaan ay u gaari karayso adigoo isticmaalaya emailskooda laakiin taa cagsigeeda Soomaali badan waxa arkaysaa oo isla email marketing isticmaala waxay sameeyaan dhammaan macaamiisha liiska ay hayaan ee waxa weeyaan macaamiishooda ay soo qaadaan deedna gmail-kii bay waxa weeyaan dhammaantood CC wada siiya taasina waxa weeyaan waa unprofessional xagga security waxa weeyaan waa khatar waayo marka qaar waxa ku soo galaya macaamiil boqolaal emailskooda markaas CC inta la soo wada siiyay emailskooda ku soo wada list gareysmaya qaabkaasi maaha qaabka uu shaqeeyo digital marketing waxa jira website iyo waxa weeyaan applications la isticmaalo oo ku saamaxaya dhammaan liiska waxa weeyaan aad hayso macaamiishaada inaad inta design qurux badan promotion iyo campaign-kaaga aad u samayso inaad u wada dirto isagoo qofna aanu arkahaynin qofkii kale emailkiisa isla markaa fariintu aanay gelin iyada oo tagasta ama qoraal caadi ah laakiin iyada oo design garaysan oo dadka soo jiidanaysa ay waxa weeyaan ay gasho marka qaabka noocaas inta u badan xayeysiisyada aad ku aragteen gmailska qaybta promotionska oo kale lagu soo diro waxa la isticmaalay waxa loo yaqaano email marketing waa tusaalaha koowaad tusaalaha labaad ee digital marketingka kamid ah ama channelskan loo isticmaalo kamid waxa weeyaan waa social media marketing inta badan kan waxa weeyaan qof waliba uu yaqaana waa weyga alaabta iyo adeegaaga loogu xayeysiiyo waxa weeyaan social media sida Facebookga Instagramka TikTokga iyo wixii kale channelska kale ee la midka runtii social media marketing marka laga warramayo waa meelaha ugu badan ee imika Soomaalidu ay isticmaasho ama waa channelka ugu badan ee waxa weeyaan imika baahida weyn ay u qabaan isla markaa ay muhiim tahay inaad barato social media marketingku laftiisu qaybo badan buu si kala qaybsanaanaya kolban waxay ku xiran tahay channelka aad maraysa because social media waxa kamid ah waa Instagramkii waa Facebookkii waa LinkedInkii markaa kala duwan yihiin kolba waxay ku xiran tahay adeega iyo alaabta aad iibinaysa waxa weeyaan nooca ay tahay oo tusaale ahaan haddii aad ku jirto fiilka loo yaqaano fashionska oo dhar iyo waxa weeyaan kaba iyo dress waxaad iibinayso
inta u badan macaamiisha waa dhalinyartu inta u badan waxay imika aad u isticmaalaan baraha bulshada qaybta loo yaqaana TikTok oo kale marka TikTok laftiisu waxa uu leeyahay qayb wax weeyaan promotions iyo campaigns aad ku samayn karayso marka laga tago akoonka userka caadiga mid business ayaad samaysan karaysaa inkasta oo mushkilada weyn ee dhulka Soomaaliyeed haysata ay tahay in dhammaan kompaniyo aad u waaweyn ay ka xidheen surface-kooda saa darteed waxa weeyaan TikTok-ga laguma ogola hadda wadanka gudihiisa aad joogto waxa weeyaan inaad si fudud aad promotion ugu dhex samayn karayso wuxuu ku xidhayaa telefoonada inta badan Soomaaliya waxa weeyaan ma aqbalo marka waa meel kale aad ka martaa laakiin si waxa weeyaan yani macaamiishu waxay joogaan hatta dhalinyarada target garanayso khaasatan fashion iyo waxa ku guda jira inta badan TikTok bay joogaan haddii promotions aad doonayso inaad samayso waxaad yani مثلا financial iyo dhaqaale iyo qodobada adeega aad qabanaysa uu ku base garaysan yahay inta badan waxa la yiraahdaa waxa ku fiican qaybta LinkedIn oo kale haddaad siyaasado kale aad political ka warramayso qaybta Twitter oo kale balse Facebook-ga iyo Instagram ko kale inta badan waxa loo isticmaalaa hadii midlan promotionka iyo campaign ka sameynaysa oo sawiro kale uu badan yahay balse Facebook Instagram iyo WhatsApp waa saddex platform oo saddexdooduba isku xirman oo waxa weeyaan page hadii aad tusaale Facebook ku leedahay Instagram-ka iyo WhatsApp waad ku xidhan karaysaa waa meelaha ugu badan ee waxa weeyaan dadka macaamiishaada aad ka gaari karayso marka social media-hu waxa weeyaan waa channel-ka labaad ee soo qaadan karno isaga laftiisuna waxa weeyaan wuu sii kala baxbaxa kolba waxay ku xidhan tahay adeega iyo alaabta aad iibinaysaa waxa weeyaan macaamiishaada iyo audience-gaagu halka ayuu badan yihiin target garayso qodobka saddexaad ee digital marketing-ka uu maro waxa kale oo kamid waxa loo yaqaano SEO iyo SEM ama search engine optimization iyo search engine marketing labada inta badan waxa weeyaan way soo galaan balse labadoodu waxa weeyaan way kala madax bannaan yihiin SEO-gu waxa weeyaan waa weyga website-kaaga aad u korin karto adigoo isticmaalaya waxa weeyaan qaab organic macnaheedu waxa weeyaan website-kaaga waxaad ugu talagelaysaa waxa weeyaan inta badan Google marka wax la search gareeyo Google-ka ama Bing marka la search gareeyo laba section buu ku soo kala saaraa qayb waxa loo yaqaan waa artist oo page-ka iyo waxa page-ka oo dhan website-dada la xayeysiinayo ayaa soo gala qaybta kale waxa loo yaqaan waa organic waa maxay waa meesha ka hooseysa artist-ka website-kaagu inuu waxa weeyaan website-dada ugu soo sareeyo oo Google-ku uu soo akhristo inay noqdaan waxay ku xirantay weyga aad uga shaqeyso SEO-ga website-kaaga marka SEO-gu waa maxay waa qaab organic inaad uga shaqeyso oo content-iga website-kaaga aad gelinaysaa ay tahay content waxa weeyaan quality leh sidoo kale waxa weeyaan aad isticmaasho metadata marka Google-ku waxa weeyaan wuxuu soo akhrisan karaa hadda si fiican aad uga shaqeyso website-kaagu in waxa weeyaan website-dada ugu sareeya uu noqdo iyadoo ay ku xiran tahay kolba quality content-gaaga iyo waxa weeyaan qaabka website-kaaga gudihiisa aad uga shaqeyso ka waxa loo yaqaan marka waa SEO ama search engine optimizations waxa kale oo isaguna jira marka SEM search engine waxa weeyaan marketing kan waxa weeyaan waa qayb adigoo bixinaya lacag bixinaya oo isticmaal tusaale ahaan Google Ads oo kale isticmaalaya Google-ku marka ama xayeysiiskii Google-ka kale isticmaalaya ama Bing oo kale isticmaalaya marka SEM-ku isaga waxa bixinaysa waa lacag deedna website-kaagii waxa weeye wuxuu soo dulmarinayaa laba saddex website ugu sareeya ee qaybta advertisement-ga ay soo gelinayaan marka isaga laftiisu waa channel-ka saddexaad ee waxa weeyaan la isticmaali karo digital marketing-ka SEO-ga iyo SEM-ka channel-ka afraad ee tusaalaha aynu soo qaadan kareen waxaa ka mid ah content marketing marka content marketing wuxuu noqonayaa waa inaad diyaarin karayso waxa weeyaan content wuxuu noqonayaa ama qoraal ha noqdo ama waxa weeyaan videos ha noqdo ama broadcasting oo cod ha noqdo wadaaf wixii doona ha noqdo laakiin waa inaad diyaarisaa content quality leh oo waxa weeyaan macaamiisha iyo audience-ga aad doonayso inaad target garaysaa ay soo booqdaan tusaale waxaanu soo qaadan karaynaa markii aynu bilaabin wax weeyaan sida academy ka hor inta aynan koorsooyinka wax weeyaan iibka aynan bilaabin website-ka la soo gelin la iska diiwaan gelinayo qofkan uu lacag bixinayo waxaynu markii hore sameynay wax weeyaan waa YouTube si dadku ay ogaadaan quality-ga aynu iyo content-ga aynu soo gudbinayna wax weeyaan qofku wax weeyaan uu ogaado marka waa inaad diyaarisaa content qofku ma qas marka inuu product-gaagu iibsado adigu tala gasho wax weeyaan advertisement-kaasi noqonaysa laakiin adigu waa inaad diyaarisaa wax weeyaan content deedna waxa weeyaan marka qofku ama ha iibsado wixii ka dambeeya waxyaabaha kale ku iibinayso ama intaasi ha ku eegaado marka haddii aad tahay qof wax weeyaan content-ga abuuri kara ama sawir ama cod ama whatever wixii uu doono waxa loo yaqaan marka isagana content marketing marka macaamiishaadii ayaad ku soo jiidanaysaa wax weeyaan waa content-gaaga marka waxa laga yaabaa haddii aad shirkad leedahay oo aad samayso ama brochure ama infographics ama waxa weeyaan
YouTube oo tutorials aad samayso oo productgaaga aad kaga waramayso oo wax weeye aad ku sharxayso oo faa'iidadiisa aad ku soo bandhigayso adigoon uga dan lahayn videoga aad ku sharxaysa inaad wax ku iibsee aad uga dan lahayn dadka inaad information iyo xog aad siiso marka waxaa loo yaqaanaa channelka aad marayso waa content marketing waxaa noqonayaa ka afraad waxaa jira kashanada haddaynu kusoo koobno waxa loo yaqaana affiliate marketingku waxa weeyaan waa adiga oo qof kale adeegiisa ama alaabtiisii waxa weeyaan adigu aad u iibiso isla markaa promotion ama waxa jeedaa uu ku siiyo qofkaasi commission uu ku siiyo tusaale Amazon oo kale aad gelaysaa waxaa soo qaadaysaa productga iyo waxa weeyaan alaabta taala deedna haddii aad haysato markaa website ama aad leedahay YouTube ama aad leedahay meel ay bulshadu ku xiran tahay waxaad siinaysaa linkiga affiliate marketingka ah deedna qofkii haddii uu productga soo iibsado waxa uu ku siinayaa markaa adigana waxa weeyaan commission ayay kugu siinaysaa companyga alaabta laga iibsaday marka shantani waa tusaale kamid ah waxa weeyaan noocyada kala duwan ee digital marketing uu leeyahay kuwooda ugu caansan inta badan dhulka Soomaaliyeed waxa weeyaan qayb kamid ah ay anfacayso balse digital marketing qaybihiisu inta uu ka badan yahay ilaa dhowr iyo 10 nooc oo kala duwan oo digital marketing uu qaybsama ayaa jira marka social media-hu waa shanta qaybood oo soo sheegna waa ka ugu caansan ama waxa dhulka Soomaaliyeed inta badan xoog looga isticmaalo qofka bartaano runtii waxa weeyaan uu shaqo uu ku abuuran karayo waayo waxa laga yaabaa haddii aad social media marketingka aad si fiican u fahanto inaad waxa weeyaan 10 company aad page-kooda aad gacantaada ugu hayso adigoo markaa bil kasta subscription lacag ka qaadaya marka waa muhiim social media marketingka inaad labada inaad xoog aad saarto optionada kale sida email marketing oo kale waxa weeyaan xoog looma isticmaalo balse haddii aad fiilka doonayso waxa weeyaan uu ku kaabaya inta badanna waxa weeyaan social media hadda doonayso inaad barato waxa weeyaan laba qodob oo kale ayaa iyaguna si muhiim ah inaad tahay qof abuuri karay wax loo yaqaan content waa maxay waa habka dadkan macaamiisha aad la hadlayso aad wax ku gaarsiinayso marka ama hab qoraaleedka inaad taqaano oo qoraal fiican dadka aad u qori karayso inaad garan karayso qaabka sawirada iyo wax weeyaan videoska loo qaato maaha qasab inaad adigu aad duubto oo cameraman aad tahay balse xitaa cidda kuu shaqaynaysa aad hayr garaynayso ee doonayso inay kuu duubto video ama sawir kuu qaato waa inaad garan karaysaa sawirka uu kuu qaatay macno intee leeg buu sameynaya marka number 1 waa inaad tahay qof contentiga samayn kara ama ugu yaraan fahmi kara haddii xitaa aad cid kale aad u dhiibto shaqadaasi waa inaad tahay laakiin qof contentiga fahmi kara si aad social media aad u barato laba waa inaad graphic designkaada aqoon fiican u leedahay waayo the more aad graphic designka aad taqaano waa the more contentigii qofka uu kuu keenay ama sawirkii ama videogii ama qoraalkii la qaaday aad ugu bedeli karayso hab macaamiishaada soo jiidan karaysa marka labadan qodob waxa weeyaan waa aasaas labadan haddaad barato content aad abuuri karto social media waxaan jeedaa graphic design-kana aad aqoon fiican aad u yeelato marka wixii ka dambeeya waxaa toos aad u bilaabi karaysaa waxa weeyaan social media marketingka marka iyagana insha allah koorsooyin dhammaystiran digital marketingka from scratch ilaa qaabka weyga marketingka loo sameeyo campaignada waxa oo dhan qaabka lacagaha loo beedgareeyo qaabka lacagta khasaaraysa loo ilaaliyo waxaasna insha allah koorsooyin baynu ka diyaarin doonaa balse waxay ku xiran tahay weyga dadku videogan waxa weeyaan uga soo falceliyaan si marka casharada kale ee waxa weeyaan iyagana digital marketing xooga u saarno marka shanta qodob ee u qaybsan digital marketingku ayaan kusoo gabagabeynaa insha allah kuwana casharkana wuxuu noqon doonaa barbilow insha allah wixii ka dambeeyana videoska waynu soo kordhin doonaa waxaynu kala tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu